بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يال إيد الكيمبا ميل والبواد جوجتان كسر هذا برامج جارو عن كجهل لأنه حالات النولد مدة عافماد يمدة وحبرشة مجال هوبيو. مجال هوبيو waxay ka tirsan tahay gobolka Mudug waxayna qiyaas ahaan dhanka koonfureed 260 kiiloomitir kaga beegan tahay magaalada Gaalkacyo ee xaruntu ah gobolka Mudug. waa magaalada dadka ku nool badankooda yihiin kalluumaysato u jalaabtagta xeebta Hobyo. magaalada ayaan lahayn ganacsi aad u buuran wuxuuna ganacsigooda ku xiran yahay kaga yimaada magaalada Gaalkacyo oo masaafo badan u jirta. sidoo kale ma lahan magaalada ceelal matoor ah oo dadka biyo macaan ay ka cabaan marka laga yimaado ceelal gacmeedyo oo cid kasta gurigeeda dhexdeeda uga qodan. biyaasna waxay yihiin kuwa aan la cabi karin oo dhanaan laakiinse waxaa jira ceelal biyo macaan waxaase fuustadii biyahaasi la kala siistaa lacag gaaraysa 50 kun oo shilin Soomaali. dadka ku dhaqan Hobyo ayaa biyahaasi u isticmaala cabid iyo cunno karin oo kaliya halka kuwa kale ay u isticmaalaan hawlaha kale. magaalada ayaa waxaa ceel matoor ugu dhow ceel u dhaxeeya Hobyo iyo Gawaan oo muddo badan u jira magaalada laakiinse nasiib darro ma la soo gaarsiin biyaha ceelkaasi. xagga caafimaadka magaalada Hobyo ma lahan wax isbitaal ah xataa goob fayadhowr ah ama meel kiniin laga iibsado waxaana qofkii ku xanuunsada magaalada dib ahaan loogu soo qaadaa magaalada Gaalkacyo. taana waxay ku tusinaysaa baahida caafimaad ee ka jirta magaalada Hobyo. dhinaca waxbarashada Hobyo ma lahan xilligan goob wax lagu barto laakiinse waxaa jiray iskuul weyn oo ku yaala magaalada inkastoo hadda uusan shaqeyn oo albaabaha loo laabay sababo la xiriira isqabqabsi soo kala dhex galay dadka deegaanka mana ahan dadka ku nool Hobyo dad badankood jecel waxbarashada. xagga korontada ma lahan magaalada koronto dabooli karta baahida koronto ee ka jirta magaalada waxayna leedahay hal mashiin oo koronto siiya Hobyo laakiin inta badan dadka ma wada isticmaalaan marka laga reebo meerada kooban oo u isticmaala adeegyo ay ka mid tahay jaajgareynta mobilada. dhanka isgaarsiinta magaalada Hobyo aad ayay ugu liidataa waxaana ku taala hal shirkad oo isgaarsiin oo kaliya taana ma dabooli karto baahida isgaarsiin ay qabaan dadka magaalada adoona dareemi kara marka aad qof wacaysid ama lagu soo wacayo in aad u adag tahay. Hobyo ayaa ah meel ay ku yar yihiin goobaha maqaayadaha ee wax laga cuno waxaana ku yaala 2 iyo 3 kuwaasna ma ahan kuwa kaafin kara dadka ku nool magaalada iyo kuwa soo booqda saas oo ay tahayna xilli walba ma shaqeeyaan. sidoo kale xagga hoteelada Hobyo ma lahan hoteelo fara badan waxayna leedahay hal hotel oo sidaas u weyneen asagana ma dabooli karo baahida dadka Hobyo yimaada. dadka ku dhaqan magaalada Hobyo oo badankooda ah kalluumaysato ayaa subax walba aroortii waxay u kalluumaysi tagaan xeebta si ay uga soo jalaabtaan ayagoona badda ka soo hela kheyraad kala duwan. xeebta Hobyo ayaa dadka ka kalluumaysta ay aad u fara badnaan jireen inta aysan dilaacin burcadbadeeda Soomaalida waxaana haatan hoos u dhac laga dareemayaa kalluumaysatada ka jalaabata xeebaha Hobyo. taasna waxay ku macneeyeen dhibaatooyinka kaga imaanaya dhanka ciidamada NATO ee ku sugan xeebaha Soomaaliya oo ay sheegeen in ay ka burburiyaan dooyahooda ayna ka jarjaraan shabakada u dhex yaala badda dhexdeeda. waxayna sidoo kale sheegeen kalluumaysatada in howlahooda ay saameyn xoogan ku yeelatay dabeelihi xoogana ee ku dhuftay xeebaha Soomaaliya oo doonyo fara badan ka burburiyay kalluumaysatada. markaad eegtid xeebta Hobyo ayaa waxay indhaha ku qabanayaan doonyo aan sida u tira badneen oo ka kalluumaysanaya xeebta gudaheeda iyo kuwa kale oo banaanka yaala. doonyaha ay haatan ku kalluumaystaan kalluumaysatada Hobyo ayaa waxaa 3 jibaar ka badan kuwa ku burbursan oo daadsan banaanka xeebta Hobyo. magaalada Hobyo ayaa waxay ka mid tahay goobaha ay burcadbadeeda ku soo xirtaan maraakiibta ay soo qafaashaan waxaana xilligan Hobyo ku xiran markab laga leeyahay Koonfur Korea oo shidaal ka soo qaaday Ciraaq una socday Mareykanka waxayna burcadbadeeda markabkaasi ka soo qafaasheen meel 1200 oo mayl u jirta xeebta Soomaaliya. sidoo kale waxaa xeebta ay burcadbadeeda ku haystaan dooni ganacsi. dhismayaasha ku yaala magaalada Hobyo ayaa waxay u badan yihiin kuwa qadiimi ah. taaladan waxay ka mid tahay meelaha ugu caansan Hobyo waxaana astaan u ahayd maraakiibta ku soo xiran jirtay dekada Hobyo xilligii bariismaadkii ee dowladda dhexe ka jirtay Soomaaliya. waxaana ka muuqataa burbur xoogan mana jirto cid isku howshay inay dayactirto waxaana ka dheehan kartaa sida ay gudaheeda uu burburka xoogan u soo gaaray. sidoo kale taaladan waxay ka mid tahay taalooyinka caanka ah astaantan u ah Hobyo waxayna ku taala ilinka hore ee laga soo galo magaalada Hobyo waxayna dhinaca ku haysa airportkii hore ee Hobyo walow xilligan uu burbursan yahay.
haddii aan usoo laabano kalluumaysatada hobyo ayaa badankoodu waxay ka cabanayaan dhibaatooyin ay kala kulmaan ciidamada shisheeye ee ku sugan biyaha Soomaaliya. Cali Warsame Cali waxa uu ka mid yahay kalluumaysatada hobyo oo muddo 50 sano ka kalluumaysanayay xeebta hobyo. Wuxuu leeyahay dooni yar oo kuwa Soomaalida ay u taqaano hurida, wuxuuna subax walba galaa badda halkaasi oo shabakad u taala, mar walbana wax ayuu ka soo helaa. Cali Warsame ayaa waxa kula kulmay xeebta hobyo xilli uu badda ka soo jalaabanayay, waxaana weydiiyay waxyaabihii uu soo helay iyo caqabadaha uu kala kulmay xilliga uu ku guda jiray howlihiisa kalluumaysi. haye بدنا شباكو أيا يسمى حتى ضرب شواagada ma saaka dhigateen masaxilli ka hore ما يا إلا نور تمبر وجهه haye saaka markaa maxaa soo heshay لكن وحاسة سؤال ليس بدنا سير النباحة بدنا سير النباحة دبادو وحنا هو الرئيس أبوه من هرت قلب لان وحنا شغلتنا قلب كوري وحنا نرجع شوي قلب نرجع شوي حيالو بدنا شماغلان قلب لان وحيالو بدنا دبادو بدنا قومنا قلب كبر بريان هيتين كده قلب كي كقادم بدل جرا إلا kalluumaysatada ku nool magaalada Hobyo ayaa aaminsan in hadda xeebaha ay xaalufiyeen maraakiib shisheeye oo si sharci darro ah uga kalluumaysta xeebta Hobyo, ayagoona sheegay inay xeebta markii ay galaan xilligii hore ay heli jireen kheyraad fara badan, ayagoona sheegay inay ka heli jireen meel aan sidaa uga fogeen xeebta Hobyo. Cabdi Khaliif Xasan ayaa iga waramay isbedelka ku yimid iyo waxyaabaha saldhigga u ah. xilliyadii aan dadkan ajnabiga ahayna wax naga boobin annaguna aan qalabka yarka haysanay maalintii doontu waxay soo saari kartay ilaa 20 kiilo dhaga ilaa iyo dhowr boqol oo kiilo oo malay ah. iskeed baa looga tagi jiray aragoosta intii la doono, iskeed baa looga tagi jiray mogiye bahal malayga snapper oo malayga adduunka loogu jecel yahay oo asna waddankeena aad iyo aad ugu badan malay asna la yumbi oo asna malayga ugu qaalisan adoo waxa la saddex malay ugu qaalisan dadku waa saddex malay adoo malayga ku si aad ay u yihiin waan ka xunnahay dadkaas annagoo kala ee aan cid ay wax u dhibeen la arag in wax la yeelo waan ka xunnahay ayadoo marka isku duub ahaan si aan dadkaas aan wax geysan oo ajnabigaana wax u gaarin annagoo aan wax geysan aan wax noo gaarin waa in adduunyadu taas ku dadaashaa in wax laga qabto dadka dalxiiska in lagu xadgudbo ma ogolin dadka yani shacabka oo ajnabiga ah ama Yurub Ameerika doon in lagu xadgudbo. Kalluumaysatada Hobyo ayaa ka cabanaya agab la'aan, waxayna xuseen in caqabada ugu weyn ay haysato ay yihiin ayagoona haysan qalabkii ay ku kalluumaysanayeen. Sidoo kale waxay ka cabanayaan in aysan tagi karin inta ay doonaan inay ka soo kalluumaystaan, waxayna taasi ku macneeyeen ciidamada shisheeye ee jooga Soomaaliya. Haddaba qalab la'aanta haysata iyo dhibaatooyinkooda waxaa iga waramay Yaasiin Maxamed Cilmi oo ka mid ah kalluumaysatada Hobyo. wax naga saacido oo Allah wax qaban kara bas bilaadanimada xaggeeda wax naga saacido haddaan helno way farabadan yihiin. awal horta qalabkii lagu kalluumaysan jiray samaawiga baa cunay waxba kama hayn caagagii laashashka hadda indhaha way qaban karaan waxa xawaalan oo jajaba ka soo jeeda wixii kala badda cuntay badda sida waxa lagu kalluumaysta qalab baa kamid ah siximada kamid ah qolofka caaga oo la wato badda la leedahay kamid ah matoorka kamid ah shamaagaha kamid ah qalabka shamaagaha la galiyaa kamid ah kullu waxa soo dhamma maayna way baabeen sidaas la aliga dhibaatooyinkaas dadkaas ku dhacay xagga nabadgelyada markii la fiiriyana hadda ajnabiga iska jiro qofku intuu rabo badda ma socon karo. Sidoo kale kalluumaysatada Hobyo ayaa qabay in burcadbadeeda qudhooda ay ku kaleeftay dhibaatooyinka ka yimid dhanka maraakiibta shisheeye oo ay sheegeen inay ka burburiyeen doonyihii ay ku kalluumaysan jireen, taasna ay sababtay inay badda galaan oo ay maraakiib soo qafaashaan. balse waxay aaminsan yihiin kalluumaysatada Hobyo in haddii burcadbadeeda la siiyo shaqo ay joojin lahaayeen howlaha ay hadda ku guda jiraan. Dadka ka kalluumaysta Hobyo kuma faraxsana in burcadbadeeda ay soo qabsadaan maraakiibta xamuusha iyo kuwa dalxiisayaasha ah, laakiinse waxay taageersan yihiin burcadbadeeda in dhigooda ay qafaashaan maraakiibta sida sharci darrada ugu kalluumaysta xeebaha Soomaaliya. markaas horta ku asaasman hadda haddii saacidaad ay helaan oo yaana dadkii saacidaad helaan oo taabaro la siiyo oo wax laga qabto xoogta aan helaan waxaan u malaynayaa inay iska dayn lahayn waxaan iyaga dhig ku warjinay sababta marka hadda laga wacyi geliyo waxaan waa iska daaymay wadda kuwa waa kulay hal la siiyo ama hadu shaqa mid waayay yaana odayaashii dadkii waa galku kala waxaan waa dhibaato laga dhibaato waaysan idinku waa dhibaato adduun ku haysan ka daay hadda shaqaan la siiyo anagu shaqaan nooya qofka shaqa waa ma
dhanka kale burcadbadeeda hobyo waxay ku leeyihiin saldhig weyn waxaana lagu soo xiraa maraakiibta laga soo qafaasho biyaha Soomaaliya iyo meelaha ka baxsan waxaana markabkii ay soo qabtaan ay ka qaataan lacag fara badan oo ah mid ay madax furasho uga qaataan waxaa caadiyan baa markaad galaysid magaalada hobyo in shacabka ku nool magaalada ay ku weydiiyaan su'aalo dhowr ah oo ay ka mid yihiin saami miyaa lagu qoray badda miyaad galaysaa iyo kuwa kale oo fara badan balse su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxay tahay burcadbadeeda ma aaminsan yihiin inay yihiin burcad maxayse isku arkaan markaad su'aashaas weydiisid qaar ka mid ah burcadbadeeda ayaa waxa ay durbadiiba kaaga jawaabayaan manin burcadbadeed ay waxaan nahay ciidamada ilaalada laakiin taa bedelkeeda waxay burcadbadeed ku tilmaamayaan maraakiibta shisheeye ee ku sugan xeebaha Soomaaliya dadka ku sugan hobyo ayaa markii loo qaybiyo 3 qaybood waxaa qayb yihiin burcadbadeed qayb waa kuwa wax ka suga burcadbadeeda halka qaybta saddexaad ay yihiin dad iska ganacsata ah ganacsatada magaalada ayaa inta badan alaabahooda waxaa si deen ama amaah uga qaata burcadbadeeda iyagoona lacag fara badan saarta alaabaha ay iyagoo u xisaabiya qiimaha shayga ay qaadanayaan 3 jibaar qiimaha uu joogo laakiinse ganacsatada waxaa lacagahooda ay suganayaan inta markabka u xiran lacagihiisa ay ka qaadanayaan burcadbadeeda waxaa kaloo jira dad u yimaada magaalada rag ka mid ah burcadbadeeda oo ay qaraabo ama saaxiib yihiin waxaana dadkaasi magaalada looga furaa buugaag burcadbadeeda ayaa u qaybsada markabka lacagaha ay ka qaadanayaan 3 qaybood oo kala ah ninka maalgeliyay ragga soo qabtay iyo kuwa markabka la soo qabtay kadib si ilaalaha u fuula waxaa 3daas qaybood lacagaha ay qaataan kasii sugaya kuwa la yiraahdo saamiyaal ayaguna saamiyaashaasi ay u qaybiyeen 3 qaybood waxaana kala yihiin saami hoosaadkaasi waxa uu gaar yahay gabdhaha xiriirka la leh burcadbadeeda saami dhexe iyo saami sare waxaana qaata maalgeliyaha iyo ragga soo qabtay maraakiibta waxaase jira qaar ka mid ah gabdhaha ku nool magaalada hobyo oo ku sheegaya inaysan sugi karin saami hoose laakiin hadda ay doonayaan inay dhankooda maraakiib soo qafaashaan inta badan gabdhaha ayaa waxaa ku dhaliya inay raacaan burcadbadeeda baabuurta qurxoon ay wataan burcadda iyo gabdhaha kale ee la socda burcadbadeeda oo iyagana wata gawaarida raaxada taasna ay soo dadajisay in gabdhaha hobyo iyo kuwa kaleba ee meelaha kala duwan ka yimaada inay raacaan burcadbadeeda ayna qortaan saami waxaana lagu gartaa astaanta xilliga ay lacagaha burcadbadeeda ka qaadanayaan maraakiibta ay soo qafaashaan in magaalada ay soo dulmarto diyaarad yar oo lacagta u siidaa